بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالقة قيمها إيه قدرت بدل ملك صدافة الدنيا ذات كجوكتين برتني وبرتي آلابا عن سكوي بيدنا على دقن هذا النوع عصبتين صورة وهذا دنا لجوكتين والنيجا ما هذا علينا لجوكينا يدير جرينتين نبه. أنت برك لقي مادو مددا هذا حالة صعوته غزة فلسطين فيديو دي بدنا يعني صوص بيجري وهكذا ودب أي أودعان السبب جرى أو جود أي نوع صورة بويدي إن هاوشاس عن سي ودنا أو فيديو ده صوص من inkastoo ay xaalado badan oo laga hadlo ama barnaamijyo badan ay noo diyaarsanaayeen oo jireen laakiin haddana waxaan muhiimadda siinay dadka walaalaheena inaan la qaybsano dhibaatadaas ku habsatay ee ilaahay uu inagu eegayo ilaahay junuudiisa uma waayeen inuu junuudiisa ilaahay u diro uu u gargaaro una u gargaaray ilaahay xamdigii laakiin ummadda islaamka ayuu ilaahay ku fiirinaya qaabka aan ugu damqano qisa kasta qisa leedahay video kasta qisadiisa ayuu wataa qof kasta oo shahiida qisadiisa ayuu wataa xaqiiqatan waxa halka ka socda ee ka dhacaya wax aniga sheekaynayo hadda ma oo waxaad ka wada dragsantihiin waxaad wada ogtihiin weeyaan dhamaantiin laakiin markaas waxaan iraahdaa waxa kale hateen u qaban karno ee u sameyn karno maanta waxa weeyaan inaan ilaahay u barino oo u duceyno waajib bayna inagu tahay inaan u duceyno qofka muslimka ka kale ee muslimka waa sida jasad waajib haddii ay xubin ku xanuunto jirkiisa intiisa kale oo dhan xumada iyo qaraaca ay u qaabilaysa u gaarsiinaya marka qofka muslimka waa sida weeyaan waan ogahay dhamaanteen qalbiga ayaan ka wada dhaawacna arinta jirta darteed waan ka wada murugsanahay qof kastoo iimaan qalbigiisa in yar oo iimaan oo misqaala darra wallahi uu ka damqanaya bal dadkii kale aan islaamka aan ahayn ee aan diinta haysanin ayaa ka damqanaya qisa wadataa wax walina oo aad moodaysid shar'an moodaysid la'allahu khayr inuu ilaahay khayr kale uu daba wado ayaa dhacda oo suuragal arintan qadiyada Falastiin waa la daboolay oo waa la iloobay waa la khaayimay waxaana khaayimay wadanadii ay isku dubka isku dhiig ahaayeen marka laga yimaado kuwii diinta ay wadaagayeen inagoo aan ku jirno waa la iibsaday waxay gaadhay heer arintooda in dad kale ay uga noqdaan afhayeeno oo dad kale ay ka hadlaan dad kale in ay arintooda ay ku raadsadaan dhaqaale iyo magac iyo laakiin iyagu taas ay ku jiraan la yiraahdo qofka wadanka ka baxa dib uguma soo noqon kuma soo noqon karo laakiin ninka falaashaaga Itoobiya ku dhasha iyo ninka Ukrainiyaanka iyo ninka Ingiriiska iyo ninka Europeanka iyo ninka Poland iyo ninka Jarmalka si bilaa dhib ah iyo elaboorka markay saa ugu dhaadhacaan sharciga dhalashada la siinaya marka la xaqiiqsado oo kalaatay in ay yihiin yahuuda halka baa la gaaray waa la ciilay waa la gubay diginta laga haba sa ahaato ilaahay farash ayuu maanta waxay noqotay arintoodii qadiyadoodii in kor ilaahay u soo waarun dad badan baa la baabi'iyay dad badan baa dhintay laakiin arintoodii inay maanta kor ay u soo kacdo oo la arko halka wadanada islaamka iyo wadanada carabta ay laga bixi karin laga mudaharaadi la oran karin waxaan la jirnaa Falastiin lama oran dagaalka hal la joojiyo lama oran karo halka wadanada caalamka wadanada islaamka aan ahayn maalin kasta toddobaad kasta sabti kasta jimca kasta ahad kasta laga baxay dadka mudaharaadi waxa ugu badnaa Ingiriiska ugu badnaa London milyan oo qof ayaa isku soo baxay waxay gaadhay Belgiga iyo Faransiis inta oo kun ana isku soo baxaan oo ay leeyihiin joojiyo dhanka ay dawladuhu ay la socdaan yahuuda ay la socdaan sahyooniyada ay la socdaan oo taageerayaan oo markasi ku soo celcelinayaan oo leeyihiin xaq bay u leedahay inay isdifaacdo Israa'iil xagga shicibkooguna maalin kasta wadooyinka u joogo qof kasta oo dameer leh oo arkaya ilmaha yar iyo ciyaalka iyo hooyada la dooxayo la baabi'inayo uu dareemaya xanuunka ay leedahay adigoo ilmahaagi uu ku hoos jiro aqalka hoostiisa aaba i badbaadina uu ku leeyahay wana badbaadin karin halka baa la gaaray halka xarameyn waa masaajidka xarameynka masaajidka rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam hadii lagu arko shaayada ama cimaamada Falastiin hadii lagu arko lagu xirayo lagu xaraynay waxaan daawaday wiil daaci ah u dhashay dalka Algeria ka waramaya 6 saacadood inuu masaajid lagu xiray duco uu ducaynayo oo kala haatay uu leeyahay ilaahay uu gargaar Gaza ilaahu Falastiinta garabsi taaba wallahi leeyahay xiray 6 saacadood oo la igu tilmaamay inuu mutahim waxa la igu tuhumsanaa kuwa booliisku markuu la hadlayay kuwa kale wuxuu lahaa nin lagu tuhumsan yahay ayaan haynaa halka baa la gaaray waxaan indhahayga ku arkay buuri imaamada Falastiin haweenay xiran oo masaajidka joogta in la xiray oo la ila soo xiray halka toddobaadkii dhaweed ay xaflad inta oo kun bilyan oo lacag ay ku la isku keenay dadka adduunka ugu fasaadsan adduunka fasaadinay halka la isku keenay si ay loogu dayso loogu ciyaaro halka dadka walaalahoona la baabi'inayo la barakicinayo 36 maalmood bal fiirsiya 36 maalmood waxna ayna gelin waxna ayna ka soo dadku ay u dhimanayaan biyaha heer ay gaareen
biyaha milixda la inay cab halkaaba la gaaray halka wadanada islaamka aan ahayn ay maalin ka sii dibadda joogaan oo leeyihiin free Palestine ha xorowdo gumaysigu ha ka dulkaco taabay markas ku celcelinayaan xagga madaxdoodu ay khiyaamayaan laakiin shacabkii baa nool oo leh diidnay hubka aad siinaysiin ka joojiye safaaradaha kala noqda halka ay shacabku leeyihiin laakiin wadanada islaamka iyo wadanada carabta afkii baa joogday waa imaamadii waxa lagu xad u malaynay maxaa la yiraahdaa dibad in loo soo baxo oo la yiraahdo free Palestine xad u malaynay waa xarameenkii waa minbarkii rasuulka عليه الصلاة والسلام والله ومنبرك رسولك ورياض وأرض الحجاز ومكة المكرمة وهلك الرياض كرسولك وكيالي ودوكي بركيسنا أيها لغو قبنا يا فسهاد إيه هيصو لا إسكوي ياريا دتك أقول نجسن دتك أقول دتك أقول فسهاد سن يا أنت الله إسكوي ياريا أوكي أنت أو بليون لغو أنت أو كن بلاسينا يا سيء ومدلو فسهادي وحجر فيديو يرون تيك توك عن صور دقي وأنا أركي حاجة dhalinyarta adduunka kale ay qaadan laadahay dhibaatada lagu hayo dadka walaalahooda dadka islaamka ah dadka reer Palestine lagu hayo oo kuwan islaamka hayn karahad wadanada reer galbeedka ay iyaguna turub ciyaarayaan inta meel weyn loo kareeyo la isku geeyo ayaa turub la siinay loo ciyaaray turub ay ku tartamayaan kuwaas waxa laga sugay maxay ma kuwaas ayaa mas'uul aqsa xoreyn ma kuwaas ayaa islaamku wax u qaban wallahi ummad markaad aragtay ummad baaba'aysa kuwa oo kale ayaa maanta la leeyahay adduunka islaamka iyagu ha gudoomiyaan qodbada ayaa la jeediyay inta aanan u imanin qodbadii shalay madaxda adduunka ama madaxda islaamka iyo wadanada carabta ay jeediyeen waxa jirtay laba qodbadood oo baxay baa jirtay labada qodbadood waxa ahaayeen qodbadii madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo qodbadii ra'iisul wasaare Xamse labada qodbadood ayaa ka qiimo batay boqolkiiba boqol wadanada islaamka iyo kuwa carabta سيبا قطبدي وحا فافتي رئيس وزراء حمزة ويري انتاس هدينا لغا قوينيو اقبالي ما ينو حماس اني تهي ارقك حسن هلكا ويري انا عمرنا فلسطين هدي ان ايضا يديك انا نوغينينين وانا نشيب كان كتاغيرنا واللبا هذا وقيمة له لبدا هذا لغا ما هيو wadanada islaamka iyo wadanada carabta iyo kuwa qadiyada Falastiin dhaqaalaha ku raadsada halka ay baleeyihiin ba Hamas hal baabiyo maxay yeelay Hamas waxay kaga xuntahay yahuud ay kaga xuntahay Israa'iil ay Hamas iyaga kaga xuntahay waa fikirka ay aaminsan yihiin sababta loo eriyanayo Hamas waa ikhwaan muslimiin حماس waxay dawada ku wadataa Iran bay dawada ku wadataa Iran waxa laga soo dhaweysanaya wadanada aan islaamka ahayn sida Israel iyo Mareykanka iyo xulafadooda waa dadka shahaadanaya la ilaaha illa Muhammad rasuulullah waxay doonaan ha aaminsanaadaan fikirkay doonaan iyagu madhabkay doonaan ha haystaan laakiin qofkaas oo qof shahaadanaya oo markasta kaaga dhukan kale وصوبت اللولي هاي مانتا ريف فلسطين لا إني من نحيو لا إني ما قرب سينيو وصوبت تذكر لوم معويليني اللولي ولا فريا حبدها لجوجيو كان كان هلا سمايو مركا هالكاس أي أمد ما تتاجن تاي أنت ما ربينا نلو ذا جو أنت سوي مدونك كل ما ذا وحنا جيت جينا سدايو أمانة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته